annagu xabashi ma arki karno xabashiya inaga xabadun baa inaga dhaxaysaa dhul Soomaaliyeed nooc walbuu yahay ma imaan kartaan Muuse Bixi baan idin keeni karin koox kale idin keeni karin daan waxaan ahay ragii xamaarada fogeeyay ee hilibka cayriina baray ee ilaa saabe gaarsiiyay marka waxaan leeyahay mujtamacan ku faanaya inay leeyihiin axmaaran ka doorbidayna adeer Soomaali wax dhaantaa ma jirto annagu asalkaygu Soomaali baan nahay Soomaalina ka tanaasulmayna intaan noolahay ka sida irwaan mid munaafiq oo Ilaahay ka go'ay ninka idin muslimada iyo gaal baa iga dhow kaas oo munaafiq in la doorto wax la weydiiyana maaha marka Soomaalinimadu inay nagu weyntahay afcaal iyo qadiyadu marka ninkan axmaarka ee halka Hargeysa ka soo hadlay hada waa sarxaan qof sarxaansan weeyaan ninkaas annagu waxaan ahay Soomaali axmaar bari waa diinay axmaarka xabashidana waa diinay dadku waa wada Soomaali baan nahay haddii axmaar iyo Soomaali noo dhibnimidoobaan caawiyo bariba Soomaali baan nahay xabashi wax naga dhaxeeya haba yaraatee ma jirto iyadaaba hadda dhul iyo dad naga haysta wax kala la bari haday hilibka qaydo hore gobolka wada looga baray wax kala la bari maanta annagu ma ogolno xabashi laga sheekaynayo dad laakiin Soomaali baan nahay Muqdisho waa dad Soomaaliya Djibouti waa Soomaali kulli waa Soomaali baan nahay ama Soomaalida Djibouti Soomaaliya naxigta Ethiopia ma garanayno anagu ka sida irwaan mid munaafiq oo Ilaahay ka go'ay ninka idin muslimada iyo gaal baa iga dhow kaas oo munaafiq in la doorto wax la weydiiyana maaha aniga ku hadla magaca ummadda islaamka maaha nin milaadanka muslim maaha wuxuu taagaya halkii fircoon buu taagay Cabdullaahi ibn Suluul taagaya oo dadka diida kala lumeenay ninkaas wax laga dhageysana ma laha gaal ninkii dhageysta iyo ninkii raaca waa la mid Soomaali waa Soomaali xabashi wanaag naga ma dhaxay